xifaaltanka rag iyo dumarka Soomaalidun baan moodayay warkaasaan arkay shalayto alla sidaan wallaahi u yaabay ninbaa iyo inankiisii iyo gabadhiisiiba gaadhi watay highwaygay saarnaayeen gobolka Baayan bay kusii socdeen marka gabadhii meel baa la istaagay waata meel yaroo marka highwayga la saaran yahay dee suuliyada kaadi loo baahdo la tago suuliyadii baa la galay ninkii iyo inankiisii iyo gabadhiiba way daadegeen way dee waxay soonayeen iska soo nafisaan dee suuliyada ay yara galaan gaadhigii baa lagu soo noqday gabadhii ay suuligii lan dumar baynu naho waa isnaqaanaaye dee way ku yara raagtay kolle oo raggii way ka cag dambeysay labadii nin ee isdhalay xaggaa toonna may eegine gaadhigii markay soo fuuleen daaqadihii bay xidheenoo way dhaqaaqeenba xuf mabay dhaadinba gabadhii dhammayd ee la socotay inay maaragtay maqan tahay iyo inay joogto 45 daqiiqo markay socdeen kadib 45 mirir markay socdeen kadib ayuu inankii xagga dambe fadhiyay ee dee ay dhaleen reerku ayaa dareemay markaasuu yidhi aabbo maxaa inaga si'a maxaa khaldan masuu yidhi maxaa inaga khaldan dee markaasuu yidhi dee hooyo maba sidnaba halkii baanu kaga nimi alla ilaahayo wuxuu yidhi hooyo waa soo ilownay gabadhii 45 mirir bay halkii taagnayd oo yaabanayd oo kalba dhinac eegaysa islahayd malaha laguma ilaawin qof dhanoo nool ariga maxaad u maleynaysaan miyay ilaaween islaanta ma xanaaq baa loo yara qabayo ogaan baa halkaa loo yara dhigayo waxaa la islahaa wax kaga yara jarta maxaa u maleynaysaan arrinkaa dumaro bal markaa midda kale markaa safarka ku jirtaan ee odayaasha gawaadhida wadaan dee bal ha kaadi tagina iska xejista walaalayaal kaadidiina yaan cidlo laydinkaga tegina